iyadoo maalinta shalay la horkeenay baarlamaanka hoose ee ismaamulka Wajeer mooshin xilka looga saaray barasaabka Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa maanta waxaan mikrofoonka la dhex qaaday shacabka Wajeer oo fikrado kala duwan ka qabo mooshinkaasi qaar ka mid ah shacabka oo aan wareystay ayaa sheegay sida tan oo ganacsatada suuq mujinga ka mid ah arintii shalay dhacday arin aad iyo aad aan wax maaneed anaka hadii aan hay mar dadweynaha reer Wajeer sababtoo ah 4 sano hadda waa soo dhamaysan waxaan maleynaa hadda waxaan ka hartay 5 sano wax yar ma arday 8 bilood ama wax noocaas ama because next year waxa la aadaa mar doorashadii hadda impeachment iyo maxkamad aadow iyo duqan xilka laga qaada inay maslaxa ay keenayso ma maleynaa MCA ga ma arday u dagaalamahay ka grant iyo maxaan ku dhahayo bending bills ki ma arday lama siin oo u qaylinahay bending bills ki ma arday odayga waxaan maleynaa soonkii ka hor adiga 1 month ago wuxuu dhahay ma arday 2 bilood nasiiyo 6 bari si aan ma arday arintan aan u soo cadeyna oo aan ma arday aan ka baaran tagna oo goobta ma arday laga shaqeeyo aan tagna aan shaqadii aan soo wabsana ka bacdi yaa marka wixii lacaga bending bills la bixinay yaan bixinaynaa aan jawaab suuq jinga aan ku bilaabayaa arinta sala ka dhacday Wajeer Soomaaliya ku maaday cudurta ceebta lagu soo deeyay ceeb arrinta soo dhamaatay soo gagoodi maanta reer Wajeer u baahna qayl iyo buuq waxa fiican haddii in iska deeyo santaas shaqeeya ma u shaqeeya wal samar la samaray cudurta bari ceeb lagu soo deeyay Soomaaliya u maaday aan waxaan inay reeyaan qaba inay duqaan santaan loo deeyo oo dhameeysta yaan qabaya arintii shalay ka dhacday county assembly anagu kuma qanacsin maxay tahay waxaan ugu qanacsanaan laanahay gabanaha Maxamed Cabdi Maxamuud waa gabanaheena Wajeer County waa nin sidii ayaga ay MCA ga ay u maalinkaas appointment ay u keenayeen warkooda war jira maahan hika shaqadooda waa un lacag beesanaane say lacag ku raasan lahayn BBI 2 milyan ay ku raasan lahayn ma shaqadooda waa un tii hore hal baad lagu leeyahay waa un tii hore ka soo qaad ma ogi MCL oo si cadaalad ay u shaqeynayaan oo wadanka ay ugu shaqeynayaan shacabka soo doortay ugu shaqeynayaan ma aha arintaas way ku qaldan yihiin gabanaha banaanka laga maro gabanaha waa shaqeynaya waqtigana kala guuran ku jirnaa excellent of Maxamed Cabdi Maxamuud banaanka laga maro waa gabanaheena shalay anaga keensanay waqtigaana qalqal iyo isjiid uma baahnin anaga dhanka kale qaar kale ayaa garab siiyay mudanayaasha baarlamaanka hoose in ay xilka ka tuuraan gaafanaha Wajeer aniga waxaan dhihi lahaa haddii run tahay Jibriil ahaan haddii arrintaas run tahay hadda dejiyana ayna ka laabanin gafanaha si degdeg ah oo dhaqso ah u impeach garayaan waa hadday run tahay haddii kale oo dad siyaasiyiin soo kormareen oo dad siyaasiyiin ku raadsanayaan dolaalna shacabka ay beenta u sheegin nimankan MCA-yaalka ah tan kale waxa jirta gafanaha waa la tili wax doonta lagu sameeyay wax kasta wala kari way wadankii waa baabay sidaas ogsoontihiin 2013kii waxa wadanka Kenya ka bilowday wax la yiraahdo dawlad goboleed waxaan soo dooranay gafanaha soo la dhahaa Axmed Cabdullaahi aniga kaasna taageero u mihi kan hadda joogana taageero u mihi laakiin wax jiro indhahayaan Soomaaliya waxay tiri waxay ilahaysa ilaala ka dhagan ama waag bariya sacba lagu ma qariyo gafanihi hore waxa ku socday xawli hormar leh kulli weaknesskiisana waa qabi qof bil aadan waay laakiin hormar iyo waxa dhacday in 47 dawlad goboleed mid koowaad ama mid labaad inaan noqono haddana waxaan nahnay tan 47 maxay yeelay qofkii hore ku jiray iyo qofka hadda ku jiro isku qaab uma shaqeeyo hayaan marka waxaan leenahay MCA-yaalka hadday run sheegan adinka ayaa codki shacabka ilma adeerayaalow ninkan haddaad run sheegaysiin ninkan dhaafiya haddaad been sheegaysiin dalaal raadsanaysiin sida tii hore camal dalaalkiina iska raadsada awal waa raadsan jirteen arrintii iyada ayaan ku faraxsanahay si wanaagsan u keenay warkoodana waa sax maxaa yeelay beri aan baadiyo degi jiray waxaan arki jiray geel isku dawareegana oon maaragtay is arkayn oo duxuuraas cunay leeyahay dawladda hadday duxuur cunto oo geela duxuurta cuno kale ay noqoto wax is arkaana ay jirin wax isla hadlaana
ayaa jirin dadweynaheedana aas dhaga beeli iyadana ay dhaga beeshi inaad doqo kursiga laga qaado kansalowda warkooda waa sax maxaa yeelay dadweynaha waa adeegayna waa inaad doorka ka taga inaad isaga danaysta maaha dowladdu waxaa loo baahan yahay inay dadku u danayso marka aniga waxaan rabaa waa saxan yihiin inkastoo isma dhaanta i dhasheed ay yihiin oo danaystayaal yihiin waa nugu daaheen hal sana kilacba ku fiicnay ayagana ayba la tagaan ana saas u soo dhaweynaa si kastaba ha noqotee waxaa noo muuqata in shacabka ay kalsooni ku qabeen mudanayaasha baarlamaanka hoose maadaama ay horaan mooshin noocan ah keeneen baarlamaanka balse aan la aqoonin ilaa hadda meel u dambeysay xasan ayman telefishinka alfa countiga Wajeer